السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفل بقى مقال كسو جارو عن رنتي الله يسود ويا ذيكم محسن. وحمانتي إلى جوجا سيدا مقال كاركتان ناس تنقاضي شخصنتاي ودي بوشيد أنتقانو يو باب جي ورنتي دي إنه يراء اسمه أي بوشيد وقرنا يسوع. هوري waxa u jiray oo aragteen muuqaallo baraha bulshada aad loo hadalhayo la wareejinayo muddooyinka ugu dambeeyay waxaa la mahadiisa inaan aragtidii muuqaalkaas ka bilaabatay iyo wixii quseeyay intaba aan maanta soo gunaanadnay saaxiibaduna si wada jira ay runtii uga shaqeyn doonaan arrimaha khayrka ee meediyaha iyo baraha bulshada waxa quseeya dhinac kastaba inaan ku dheeraado ma rabo intaas runtii maanta inoo suurta gashay qof kastoo labada saaxiib kamida sheekha iyo baabajey ayaan rabaa inaan kelmad soo dhaweeyo soo dhawaada Allah barakeeyo sheekhan ku bilaabaya sheekhayna soo dhaweeyo bismillah waan dhawahay waa maalinkii labaad ee shawaal oo hadale maanta roob baa daayo waa xilliyada ay samadu furan tahay ducadana la ajiibo walaalkay wuxuu ku guuleystay as-sulhu jaa'iz bayna al-muslimiin wax muslimiinta laga rabay ayuu u istaagay wuxuu isku keenay laba nin oo walaala isla dhashay ay ka dhaxayso waxyaabo waaweyn oo aan lagu kala tagi karin diin iyo walaalnimo iyo dal iyo iskaashi walaalkeen baa sabab u ah Allahu Rabbul Alamin ha ka abaalmariyo mahadina ha ka gaarto waxaan ku faraxsanahay walaalkay oo wax badan qaba karo oo aniga iga wanaagsan xagga miidiyaha in maanta aan isla fadhino xoolo iyo caafimaad iyo waqtine talada Allahu Rabbul Alamin aan gashano bulsho sida Allahu Rabbul Alamin amray inay u noolaataan inaan u noolaano marka xigta iyo marka saddexaad walaalkay ayaan u mahad celinayaa iyo walaalkay iyo dadka muslimiinta oo klibkan u gaari doono in maaragtay ay islaaxa qayb ka noqdaan aad aan ugu faraxsanahay inaan la kulmo laba nin oo muhiim ah horta awalan waa idin salaamaya marka xigto hadal Soomaalidu xidhad hadal waa margi hadba dhinacii loo jeedo u jiitama qofna si u dheh qofna si u qaaday aniga shalay markii ninkan walaalkayga ah intuu ila soo hadlay fariin ii soo qoray oo rabay inaan wax ii sheego aan ka dhigaysan waayay dad badan ii soo diray aan wax ka maqli waayay qofkan wax qariyana waa laga fiican yahay haddana social media baashi ay gaarsiiyeen si weynaatay anigana aan fahmi waay bini'aadanka fahamka mararka qaarkood ma lahan karaan taas waxay caddeynaysaa annaga inaan nahay bashar oo keliya awoodana ay naga sareyso wixii horta soo daaha qaar ku jiraan aniga shalay ninkan walaalkayga ah wuxuu iga badbaadinaya waxay ahayd naar hadalladaas aniga aan dhahayo kaftankaas faraha badan dad badan aan ka qosul siinayo dad badan salaada darteeda u dhaafayso dad badan cibaadada aniga darteeda ay ugu tagayaan say aniga afkayga u fiirinayaan inaysan wax ii fiican ahayn oo ii sheegayo qof wax uu ku raadsan karaa laakiin in aan u dhaxgeliyo mararka qaarkood in dadka aan wax u sheego maadaama hadalkayga meel dheer uu gaarayo aniga asiga kama aqli badni kama aqoon badni kama cilmi badni dhanka diinta asaga iga maanta xog fiican oo igaaga wanaagsan oo ilaahay ku hagay anagana waxaan rajaynaynaa wadada asaga oo nafaray wadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wadadii saxaabada ay mareen wadadoo ilaahay raali ka yahay naartana aan kaga badbaadayno anaga iyo ehelkeena iyo qaraabadeena inaan wada marno oo walaalkay ila jeclaystay aniga si qaldan u fahmay kun iyo koo jeer waan raali gelinayaa inaan la tirsado ama magaciisa qaldan aan ugu dhawaaqo amaba aan wax dhaho aniga wata qalada igu ahayd ilaahayna ha iga cafiyo asagana waxaan ka codsanayaa weliba dadka hortooda inuu iga cafiyo maanta wixii ka dambeeyo waxaan diyaar u ahay in wax walba oo diintaas aan isdhihi kara maanta bulshadooda u sheegi kartaa wixii aan ka siina maba kasaay wixii aan aqaano oo culammadeennana aan ka dhageystay inaan dadka gaarsiiyo aan dhaho walaalayaal waxaan waa xun yahay waxaana way fiican yihiin kan aan ka tagno kanna aan qaadano haddii asaga oo aniga wanaaggaas ila rabay anigana aan fahmi waaye laakiin maanta uu ilaahay aqligayga iyo walaalkayga igaasimiyayga Cabdullaahi Daarsiya Dakoos oo labadeena isku keenay ajirka ugu badan maanta asaga ayaa qaatay farxad weyn ay tahay sheekh shantay aniga inaan la joogo maanta sharaf weyn ay tahay inuu ka soo muuqdo page-kayga waxaan dhihi karaa waa qof ku dayasho mudan wanaag noo gudbinayo dadka hadalkiisa dhanka xumaatada u qaadanayna waxaan dhihi lahaa bal meel fadhiista ee fikira aqliga saliimka ah wuxuu kuu soo saari doonaa waxa uu kaa badbaadinayo inay tahay wax xun qof kastoo binaadana waa u dhimanaya qabriga sugaya oo mitral gelina waa laga soo kala tagaa
neefta markay kusoo noqotana su-aalo baa la weydiin doonaa wuxuu leeyahay waxaa noo hagaagsanadaa mooye waxba nagama haleynayaan marka sheekayga waan ka aqbalay ilaahay garana الله اكبر ما شاء الله أكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله waqti walba yacnaana kartaa waqti walba wax ii sheegi kartaa kaama weyni hadalkaaga ma diidaayo walaalka ila dhashaa tahay waxaad ifarto waan samayn doonaa insha allahu tacaala الله أكبر tahay وحنا faraha bulshada iga weyn tahay khayr allah ku siiyo waa maanta aniga iyo dad lamida xagga bulshada nooga fiican tahay naf iyo maal waa inaan waqtiga ilaahay ridihiisa aan gashanaa ilaahayna aan la heshiinaa waana ku faraxsanahay inaan kula kulmo baaraka allahu fiik hal mar waxaan ku darsanaa oo fariin aan u diraa gabdhaha walaalahayda Soomaaliyeed in sheeqeena daacigeena aysan qalad u fahmin daaciga waxaa waajib ku ah oo diinta lagu soo bartay inuu asaga isku ekeeyo ma ahan ehelkiisa inuu ka bilaabo qaraabada qofka oo kana xayo oo gaarsiiyay ogow qof wax kuu sheego qofku neceb ma aha ee waa qofku jecel ee annaga Soomaalideena waxaan u samaysanahay qaab qalibsan kaliya waxaan jecelnahay waxyaabaha xun anaga aan sameynayno maanta hadii la dhaho baabajey iyo hebel isku dhigano is caynayay muuqaalka si fiican u daawanaysiin laakiin laba qof oo walaal ah oo ka sheekeynaysa diinta marka aragno waan isku gudbinaynaa حتى إذا عدهم كسمين جرا ما كنت دين سوق لو قد بجرا كان هي سوقنا واستاجين جرا هذه لا لقى عبسنا واحد بدنا صومرني ما يلا بدنا واحد قصص سميني وقمنا هي قعم يسكن واسكن بدنا وقمنا لكن إلهي أن أصونا قلنا توبوا إلى الله توبة نصوحا سامو شيء غير مركا قبلها ولا عليه وغرس ولا شيء فرتون بالبلاركا عصنا يا كن يكوجر أدينا إن أرنتاس أدي بقولابته شيخا داعينا ولا الكينا خيرنا الربا كانت خير كلا فهمته qof kasto walaal ee wuxuu sheegay qofku la soo hadlabo in qeer oo rabo inuu fahansiyo boqolaal qof kala joogto wuxuu la hadli waayo wuxuu anaga nooga doortay waxay tahay aragtiya jirto aragtidaas ilaaha qofkan ku hagaajinayo mar walba loo sheegay waxa leeyahay walaalkaas uu fiican yahay meel xun laakiin ku socda ka qabo ka qabashadii lee waaye xumaan ma jirto Abdullahi Abdul Maasanta kun ifoojar hada si waan kaga madcelina maanta qaybta ka talisay waxay dad badan qabo waayeen aqal aad runtii waan ku faraxsanahay waxaan soo gaarnay gunaanadkii maro wuxuu yiri qof oo ajiray labadeen rabin oo dhax galo hadal ii sheegay halkaas ay iga qosaysiiyay hal mar jeclaysan laakaas hadalkii oo daaciga oo asigana uu imaadayo Anas dad badan ku daras sheekhaas dadka salaam aan ka reelgeelaas aad marka runtii ilaaha ku mahadsan wax kasta sida muuqaalka u aragteenna sidaas wax u dhaceen waxaan rajaynayaa in fariintan qof kasta oo ay gaarto inuu faafiyo waxaan aaminsanahay falcelinta ka imaan doonta inay tahay mid wanaagsan waxaan ka shaqeynaynaa inaan sii wadno howlahan sidaana oo saaxiibada iyo dee qof kastoo aragti qaldan u fahmay ama si qaldan wax u fahmay shaqadii daaci ugu hayay si qaldan u fahmay waxaan ka shaqeynaynaa inaan sorkeenno qof kasta fariinta gabdhaha baabajin uu ka dhawaajiyey gabdhaha xishoodka lagu yaqaana rabno inay ku ekaadaan allah idin barkeeyo fartuun iyo saaxiibadeedan gaarsiinaynaa guryaha ilaahay idinkii jooga xishoodka dumarka lagu yaqaano muujiya halkaasaan rabaa ayada inaan ku ekeeyo aan u dhaafin qof kastoo dumarana fariinta inay gaartaan rajaynayaa wixii ka sokeeya oo dhalinyarada ahna dhalinyarada meediyaha ku jirta waxaan ka codsanaynaa iyaguna in sida baabajey oo u qaatay fariinta in iyaguna u qaataan ilaahay idinkii aan ka rajaynaa anigana waxaan kala shaqeyn doonaa daaciga in qof kasta oo isdhihi kara bal maanta uu mudan yahay in laga badbaadiyo wadadan xun qaabka ku socdana ay tahay qaab oo aan fiicneen in wadada saxda ah aan tusno sheekh waan kala shaqeyn doonaa biidnillahi kariim qof kasta oo qaab qaldan sheekh u fahmeen waxaan jeclaan lahaa maalin meeshaan aan fadhiyo kale loo soo fadhiisto markaad la kulanta kadib baad fahmi doontaa waxa uu waday in ay tahay wax fiican aysan ahayn wax adiga lagugu dulminaayo wax walaalkaa lagu dulminaayo aniga ninkaan ima caynin ima aflagaadeenin hadal qaldanna ima dhihin aragtiyuu leeyahay qaab diini inuu wax igu sheegay marka meel looga leexdaa malaha ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsa hadii lagu dhaho gacanta markaa qofku qaadarta ilaahay ka cabsa istaag markii lagu dhaho waxaa xaq ah inaad istaagto sababtoo anaga yaan abuurtay ilaahay gacantan yaa isii ilaahay aniga maanta qof lug la-aan ahay markaan dhaco waxaan u baahnaa qof i qabto haddaan lixadkayga qabo qof u baahnaan le yaa itiray ilaaha itiray adigaa ku siiyey ilaaha ku siiyey marka qofka markuu meel ka maqan yahay oo ogaan doonaa waxa ka maqan qiimaha ay leeyihiin wuxuu naga celinaya maanta haddaan inta ku fahmi weyno beri markaan ka shalaynayno markaasaan dhihi doonaa maxaan shalay u qaadan weyne walaalkeen waxa uu noo sheegay aniga ma arkin maanta sheekh asaga lamid ah oo qaabka aan wax loogu sheegay noogu sheego aniga ma arkin runta ilaahay leedahay
culamadu wax way sheegaan laakiin qaabka sheekh Shantaay oo wax noogu sheego boontiga saxda oo noo tuso horta waxaa sax inuu dhaho hebelow waxaan waa ku qaldan tahay hebelow waxaan waa ku saxan tahay aad iyo aad inuu tilmaamo eray waxaa tiri baaquli boy oo maalin uu dhahay war gabdhow flow waxaad ku raadinaysaan inaad isqaawisaan laakiin maanta ani flow waan ku siiyey fiyusna waan ku siiyey berita maxaan kaa celin karaa aniga naar waa maya walaalka wuxuu iscilkaambina ehelkaaga meel ma soo fadhiisan karaa waxaan leeyahay war gabadha qabaneed aabaheeda waaye wiilka qabanaa walaashiisa waaye marka ereygaas markaad soo qaatay xoogaa aniga waa waxbaan aan ka dareemay in ilaahana qofka wax ku hagaajiyo qof wax iska dhihi kara ma jirto inaan maanta kulano ilaah xaggiisa ka qoran tahay marka haddii aan wax qaldan sheegnayna naga raali noqdo kulli waxaan ogahay muuqaalkan inuu meel wanaagsan gaari doono falcelin fiican ay ka imaan doonto إن شاء الله تعالى شيء يكون يكوجر وكان كما وقت لا يقال يقتبل ما شاء الله أما أنا كفر أحسن كل ما شاء الله ولكن خير الله كثير هذا ما هذا ما استوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.